nabadgelyadu waa asadka qura ee Soomaaliland leedahay waana takaliya ee Soomaaliland ay ku caanamashay muddadii 26 sanadood ay jirtay kulan ballaaran oo laga hadlayay qiimaha ay leedahay nabadgelyadu oo ka qabsantay hoteelahaas ee magaalada Burco kulankan ay soo qaban qaabisay ganacsatada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay culimada diinka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta saddex xisbi qaran ee gobolka Togdheer kulankani markuu soo idlaaday ayaa waxa soo isku mid ah qiimaha ay nabadgelyadu leedahay iyo baaq u soo jeediyay bulshada Soomaaliland culimada diinkii mas'uuliyiinta saddex xisbi qaran iyo ganacsatadii munaasabadani kulmisay waana kuwan iyagoo arimahaasi ka hadlaya nabadgelyada inta badan lagu soo caanamaalay ee lagu naaloonayay ee dibadda iyo gudaba Soomaaliland lagu amaanay halkay ka bilaabantay nabadgelyadaasi Burco ahayd u baahana oo culimadii gobolka iyo qarankuba iyo ganacsatadii gobolka iyo qarankuba iyo saddexdii xisbi qaran iyo bulshaweyntiiba gobolka Togdheer ee Soomaaliland ay cod dheer iyo cod gaaban ba ku sheegayaan nabadgelyadu inay tahay lama taabtaan waxyaabaha yar ee dhacana insha Allah ta'ala dib inaanay u soo noqon nabadgelyadu maadaama ay tahay raasamaalka cid walba u dan ah sidii loo ilaalin lahaa in la iska kaashado Allah ta'ala arintaas inteedii horena Ilaahay tabaaraka wa ta'ala dadkii ku waxyeeloobayha hawna xariisku dhintay kuwii dhaawacmayna Allah caafiyo wixii dambana waa la isku soo gaaray waxaana insha Allah ta'ala ku bushaaraysataan sidii wax dambe aan u dhici lahayn ayaa gacanta la isla qabsaday maanta waxaan ka hadlaynay oo aan isku yeernay saddexda xisbi qaran arinta nabadgelyada oo ah mid u dana dhammaan bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer aynu ku noolahay inaynu wada ilaashano nabadgelyada oo aynu dhamaanteen ciidanka oo kaliya aynaan ku halaynin laakiin aynu gacmaha ku wada qabanno oo aynu arinta aad uga soo wada jeedno ayay daarnayd fariinta maanta aanu halkan ka direynay hadii nabadgelyo la waayo madaxweyne shaqeynayana ma jiro xisbi shaqadiisii gudanayana ma jiro marka waxaanu si guud u wada leenahay bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa reer gobolka Togdheer wax kasta ammaanka laga horeysiiyo maanta baaqa aanu dirayno hadaan nahay xisbiga kulmiye anigu ah gudoomiye ololaha gobolka Togdheer ee bulshada reer Soomaaliland iyo gaar ahaan gobolka Togdheer aanu dirayna waxa weeye waxa Ilaahayna siiyay nimco ballaaran oo ay ugu horeyso nabadgelyadu inaynan iskaga ciyaarin anaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan taageerayaashada xakamayno hadaan xisbiga wadani waxaan halkan ka diraynaa reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan kula dardaarmaynaa in nabadda ilaaliyo nabaddu inaga ay dan inoo tahay qolada komishanka qaranka waxaanu markii saddexaad ama markii afraad markii shanaad ugu celcelinaynaa in cadaaladdu shaqayso cadaaladdu inay shaqayso go'aankii halkan lagu qaatay sidii xisbiyadu u soo jeediyeen aad iyo aad bay ugu amaanan yihiin guud ahaan gobolada dalka oo dhan iyo gobolka Togdheer gaar ahaan waxaynu kula dardaarmaynaa nabadgelyadu waa hantida qura aynu leenahay cid waliba u baahan tahay dhalinyarada gaar ahaan nabadgelyada ha la ilaaliyo waxaan kaloo tacsiyadeynayaa shaqaaqadii dadkii nagaga geeriyooday waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo eelkoodina samir iyo iimaan ka siiyo saddexda xisbi qaranba si wanaagsan oo sharaf leh ayay u hadleen waxay ballan qaadeen inay nabadda cid kasta oo jecel kala mac yihiin Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad Bulsha TV Burco.